waxa la dhacay wadaga mudaharaadey magaalooyinka Garowe Boosaaso iyo Galkacyo waad arkaysaan waa sheekhi waa shariifkii waa marwadii waa hooyadii waa aabihii iyo dhammaan nooc kastoo kamid ah bulbaraha kamida bulshada noocyada kala duwan ayaa kabaha la dhacaya lagama xishoobo madaxweynaha qaranka sida kabaha loo dhacay waad arkaysaan aad ugu fiirsada waa magaalada Garowe waa magaaladii maanta farmaajo lagu soo dhaweeyay dalku waa isku mid madaxdu waa isku mid waa shalay maanta waa qabyaalada cadaanka ee Soomaalida lagu kala dhaxayo inta Soomaaliya cayn ka tahay meel kale ka eegaysan inta Soomaaliya cayn ka tahay wili halkan ilaaga waa farmaajo dalkiisii intuu ka yimid magaalo kale dalkiisa aad tagay sidii nin ka yimid dal shisheeye ayaa loo soo dhaweeyay waa arrin qalad ku ah oo gaf ku ah beelaha uu ka soo jeedo Xasan Sheekh waa qabiilada dadka kale kabaha la dhacaya waa lagu mudaharaadaya iyagoo waxba samaynin ninka Itoobiyaanka dadka u dhibay qalbi dhagax dhibay intaas oo kun oo arrimood ay ku fashilmay aynu ognahay maanta halka ay Soomaalidu maraysa iyo dheerida ay ku jirto dawladda Soomaaliya ee qarannimadii Soomaaliya baabiyay ee dadkii isku diray maanta aan mudayn in loo dabaaldego qabyaalada darteed loogu dabaaldego wada baleega halka baleega balmeeshaaga waa sheekhi hatta qaar imaamo masaajidada tukiyaan garanaya halka maraya xagu ka yimid ma wafti kale oo ina soo boqdayba madaxweynihii Turkiga baleega qabyaalada Xasan Sheekhna kama la dhacay reer Muqdisho